السلام عليكم. wargelinta maanta aan idin wada waxa way ku saabsan tahay maxaa ka soo cusboonaaday cudurkan COVID-19 oo maalinba heer maraya. Maanta waxa cusub maanta oo ay taariikhdu tahay July 7, 2020 hay'adda caalamka adduunka ee caafimaadka u qaabilsan waxa ay qirtay ogolaatay oo acknowledgement ay u samaysay in ay dhici karayso cudurkan in uu airborne transmission uu dhici karayo. Laga soo bilaabo maalintuu cudurkan yimid doodaasi way taagnayd cudurka sidee baa loo kala qaadaa, mode of transmission-ku waa sidee, ma galmaa lagu kala qaadaa, ma droplets lagu kala qaadaa, ma taabasho lagu kala qaadaa, ma maxaan ku dhahaa hawadu raacaa. Su'aalahaasi iyo kuwo kaloo badanba waxay ahaayeen su'aalo badan oo dadku isweydiinayeen. Dadka ku shaqada leh ee scientistiga ah ee wax kala aan qaban ee shaqadoodu sidaa tahay ayaa muddaba ku howlanaa, laakiin waxaa sugnaatay in droplets uu cudurka ku baaho. Dropletskaasoo ah dhibcaha waaweyn ee qofka afkiisa ka soo baxaya ama sankiisa ka soo baxaya marka uu qofka uu qunfaco ama uu hadlayo ama qofka marka uu hindhisoodo. Dhibcaha waaweyn ee ka soo baxa ayaa la isku raacay inay yihiin kuwo sugan oo cudurku ku gudbo. Way jirtay in la baaray in uu xitaa surface-ka meelaha markuu taabto dhibcuhu ay gaaraan in laga qaadi karayo, oo laakiinse waxaa la ogaaday iyana inaysan ahayn habka ugu weyn oo cudurku uu ku gudbo. Laakiin arrintan in uu hawada raaco waxay ahayd wax weli baaritaankeedu uu socday. Waxaa is soo tiraya baryahan dhanba in ay dhici karayso. Saynisyaal fara badan oo 32 waddan ka socda ayaa mid kastaaba evidensigiisa ku sheegay in ay suuragal tahay oo ayna hayaan proof in cudurkan uu hawada raaco. Waxaan la garanayn intuu hawada ku jirayo, waxaan la garanayn inta waqtiga ay ku qaadanayso iyo waxyaalo badan oo detailskaasi ilaa hadda kolley waa lagu maqan yahay. Laakiin 32 waddan scientist ka socda oo tiradooda gaaraysa 239 scientist oo 32 waddan ka socda ayaa waxa ay qoreen maantay oo ay u soo gudbiyeen hay'adda caalamka adduunka iyo hay'adda CDC-daba haddii ay iyadana ay qaadanayso in la tixgeliyo in cudurkan waxyaalaha keena ay ka mid tahay in uu hawada raaco. farqiga haddaan kuu kala sheego, droplet transmission waxa weeyaan waa dhibcaha waaweyn ee qofka ka soo baxa oo cudurka raacayo, iyo airborne-kana waxa weeyaan waa markuu ay dhibcuhuba ayba ilma qabata ay noqdaan oo aad ugu sii yaryar yihiin inuu cudurka uu maxaan ku rahdaa uu xitaa uu raaco oo hawada uu maxaan ku rahdaa uu ruudkiisa uu noqdo. siday ahaataba calaa kulli xaal arrintii waa wax isa soo taraysa. hay'adda caalamka dunida qofka ugu qaabilsan ee maxaan ku rahdaa cudurrada technical lead-ka ah ee COVID-19 pandemic-ga naagta la yidhahdo Dr. Maria iyo Dr. Benedetta maanta waxay caalamka la wadaageen in ay arrintan jirto loona baahan yahay in tixgelinteeda la siiyo. hay'adda caalamka markaa way aqoonsatay warkaasi oo ka soo fulay scientistiyaal caalamka ku kala baahsan oo 32 waddan ka socda. waxaa dhici karaysa in hay'adda CDC-da ee Mareykankana in mar dhow iyana ay evaluate garayso oo ay dheg u dhigto ay maqasho dabadeedna ay arrintaasi qayb ka noqoto waxyaalaha guidance-ga ama ay maxaan ku rahaa cudurka waxyaalaha uu ku baaho oo ilaa hadda aysan ku jirin airborne-ka in ay qayb ka noqoto. marka scientistigu waxay leeyihiin flowing virus particles can infect people who breathe them in. warkaasi wuxuu yahay haddii qof uu meeshan ku qunfacay kadibna uu ka dhaqaaqay adigoo qabar maafisha aad timaadid meesha waxaad u imaanaysaa cudurkii oo hawada kugu jiro oo qaadashada aad qaadata ay noqonayso dhici karaysa inay noqoto viruskii ee COVID-ka ahaa. cudurrad aad u tiro yar oo halis ah baa caalamka sidaa u baaha oo jadeecadu ay kow ka tahay oo ay TB-duna ku jirto.
tuberculosiska ama cudurka loo yaqaano qaaxada oo wuxuu ku baaha waa airborne weeyaan waxaa kaloo jirta cudurkan kale ee measleska loo yaqaano isna ee janeecada sidaas uu ku baahaa waana cudurro khatar ah oo marka arrintan waxay zaa'idinaysaa culayska cudurkan uu yeelan karayo marka ay noqoto dad meel isku dhow yihiin siiba hadday noqoto masaajidda jameecaadka meelaha dadku aadka ay ka shaqeeyaan meelaha hilibka iyo suuqyada dadku ay madax iskula jiraan meelaha biisiga meelahaasoo dhan oo indoorka ah waxaa dhici karaysa dadku in qof bukay uu hawada maxaan ku rahdaa u camiro oo dadka kalena intoodii kalena ay hawadii qaataan taasoo aynan jeclayn inay dhacdo laakiinse cilmi baaristii la sameeyey ee muddaba lagu hoolanaa dadkii ku shaqada lahaa waxay caalamka la wadaageen in arrintan ay suuragal tahay marka waxaan kuu sheegaya waxay tahay arrintaas ayaa caalamka maanta kusoo kordhay marka meelaha inagu inoo gaarka ah ee masaajideenna suuqyadeenna cusbitaaladeenna meelaha guryaha maxaan ku rahdaa aadka loo degan yahay dadku ay maxaan ku rahdaa aadka biisiga u yihiin reeraha isdul degan dadka maxaan ku rahdaa biisinisada haysta ee sida keerka ee health maxaa la dhihi jiray day care iyo waxyaalaha la midka ah in ay u foojignaadaan arrintaasi waxaa markasta muhiim ah qofku inuu xirto san xirashada oo maaskigaasi ama face coveringka inuu sameeyo oo ay gacmo dhaqashadu ay aad muhiim u tahay waxyaalaha qala qofku isku protect gareyn karo oo PPE-da loo yaqaano in markastaba lagu dadaalo in nadaafadda maxaa la dhihi jiray cleaning and disinfecting markastaba inuu sareeyo waxyaalahaasi waa aad bay muhiim u tahay marka muhiimadda maanta waxaan soo kordhay waxay tahay taasoo wax weyn ka bedelay doonta sida cudurka loola dhaqmo maxaa yeelay waxaa laga hadlaya waa source control marka qofka la yaqaano iyo sida cudurka uu u baahan la yaqaano waxa weeyaan sourcigii baa la controlaya meesha cudurku ka dhalanayo laakiin maanta waxaa kusoo zaa'idaya haddii qof uu meel uu xantiisa dhigay oo virusku ku daadiyay kadibna uu bas ka siistay dabadeedna dad kale oo qabarmaafisha meesha yimaadaan oo cudurkii ay ka qaadi karaan waxaa adkaanaysa markaa ama u baahanaysa messaging fara badan sida cudurka haddii sidaa ay suuro gasho sidii loola tacaali lahaa marka arrintaasaa muhiima oo aan jeclahay dadka iyagu inay u baraarugaan waxaan sidin kula talinaya mar kastaba cudurkan iyo cudurro badan oo nala midka ah TB-da annaga nooga daran iyo jadeecada nooga daran haddaan nahay Soomaali laakiin kuwaasi waa cudurro inala dirsay muddo aan la noolaa oo aan naqaano sida loola tacaalo laakiin maadaama cudurkan uu yahay mid caalamka dhan ku cusub si wadamadan aynu joognay Mareykanka iyo dibadahan marka loo soo baxo waqooyiga Amerika oo kale oo hadda uu ku ba'an yahay in aynu taxadirkeena qabno ku dadaalno sidaanu isaga dhicin lahayn oo aanu qayb uga noqon lahayn markastana aan u foojignaan lahayn oo isaga ilaalin lahayn waxyaalaha zaxmaadka ah isu imaatinka iyo maalayacniga fadhi ku dirirka iyo qofka xanuunsanaya oo ku talagal la'aanba dhici karaysa inuu cudurku ummadda ku faafinayo dhalinyarada ay u badan tahay weli dhalinyarada ay u badan tahay marka si taas aan u dhicin baan insha Allah waxaan jeclahay in aan idinla wadaago wixii soo cusboonaaday cudurkan ku saabsan muhiimaddu waxay tahay in aynu isgaarsiino aqoonta marka loo baahi badan og yahay oo marka loogu baahi badan og yahay oo ah waqtiga cusub tahay si aysan u dhicin la yima sheegin war uma hayn marka waa halka aan war iyo wacaal wixii aydan qabinba aan jeclahay inaan idinkula wadaago sidaas iyo nabadgelyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته